الحمد لله رب العالمين dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan hawada soo marsiinaya salaad oo qiimo badan walaalayaal xaaladdeenu aad bay u wanaagsan tahay arrimihii aan u baxnayna guul bay ku soo dhamaadeen runtii ninkii Shariif Xasan ahaa hawlihiis baan ku jirnay runtii adduunka maanta ma ogolo in argagixisada la caawiyo Shariif Xasan wuxuu ku sifoobay nin si wanaagsan xiriir hoose u leh urur diimeedka al-shabaab inuu ku xiran yahay ayaa la ogaaday dhaqaalihii ugu badnaa ee Shariif Sakiin uu leeyahay wuxuu yaalaa magaalada Abu Dhabi ayuu yaalaa halkaas oo runtii dhowr shirkadood ku jiro oo muxuu ahaa oo ganacsi ah uu meesha iyada ku samaystay tani iyo laga soo bilaabo waqtigii dawladii Abdullahi Yusuf ilaa ma hadda laga joogo wuxuu ku mashquulsanaa sidii muxuu ahaa hanti oo asaga personal ah ummadan dhiigeedii ugu soo saari lahaa ayuu go'aankiisa ahaa marka adduunyadan hadda maanta waa la soo koobay oo muxuu ahaa hadii ay noqoto in dhanka hantidaadii in la ogaado ama la xanibona waa program loogu talagalay baa jiro oo wax walba soo saarayo oo lagu ogaaday Shariifka in hadda wixii ka dambeeyo arrimihiisii dhan caalami ahaan in loogu soo jeestay ilaa anaka wax kale oo maanta toodii gudaha raggii joogay ayaga u taalinay wax ka qabtaan laakiin anaka qurbahan joognaa qurbaha wixii noogu aadan inaan qabano waa ku qasbanahay wax allaale wixii noogu aadan Shariif Sakiin ama Shariif Xasan loogu hortagi karo ama nin walbo oo muxuu ahaa hogaamiye kooxeed ah ama muxuu ahaa sidaad ogtihiin koox hadda ka hor oo waxaa jirtay Facebook ka dilaacday odageedeen baan u malaynayaa oo aan u aaday wadamadan Belgium iyo Holland raggii ayaga ahaa maanta ninkii asaga ahaa oo aad taqaaneen oo joogay Holland maanta inuu darbiyada seexdo wax yar baa ugu dhiman sababta guriga in laga saarayo ayaan maqlay oo ilaa intaas oo bilood kiradii lagu yeeshay marka waxa way dhanka dhaqaalaha loo burburiyo ilaahay baa noo sakhiray alxamdulillah rabbil alamin nin walbo dhaqaalaha uu haysto ama meelihii wax ka soo gali jiray qaabka loo burburiyo oo looga guuleysto walaal hala share gareeyo insha Allah si share gareeyo waa maasantiin share dhaha marka qofka marka hore hadii dhaqaalaha xaqiis laga galo oo dhaqaalaha hadii laga burburiyo laga dabagalo la ogaado la fashiliyo ruuxa waxa oo intaan oo dhan oo mardaba ama dhibaato ah waxa ka keeni karo oo kaliya dhaqaalaha markuu haysto ayuu access yeelan kara Soomaa dhaqaalaha xaqiisa laga weeraro qofka dhaqaalaha waa la ogaaday hadii marka dhaqaalaha qofka laga weeraro ama dhaqaalaha xaqiisa laga galo wax u suurtabi karo oo laba shay isu keeni kara habiraatay malaha marka Shariifka dadkii gudaha joogay ee digil imriflaha ahaa way kari waayeen inay tuuriyaan ama dhagaxayaan ama wax ka qabtaan ama iska xureeyaan ama iska qabtaan ama ka hortagaan way aboodi waayeen sababtoo ah man u shaqeeyay dantoodii kama shaqeeyay wuxuu ka shaqeeyaa dano dad kale Soomaaliyeed ayaa adeegsada dadkaas ay ku tiirsan yahay Soomaali kale oo Muqdisho iyo meelo kale ay joogaan ayuu ku tiirsan yahay dadkaas baa muxuu ahaa wax allaale wixii dadkaas yiraahdaan ayuu ku socdaa ilaa ma hadda mis weydiisay waad aragtay gobolkan Shabeellaha Hoose dhibaatooyin fara badan baa ka taagan sida ogtihiin dhibaatooyinka gobolka Shabeellaha Hoose ka taagan Shariif waxaad moodaa inuu asaga raaliba ka yahayba dhibkaas inuu soo dhamaanin dhibka oo Shabeellaha Hoose ka taagan isla qabsiga dagaalada sokeeye iyo dhibaatooyinkaba waxaad moodaa inuu asaga raaliba ka yahay oo aan marnaba Shabeellaha Hoose ama dadkii lahaa ama kuwa aan lahayn ama kuwa ku soo duulay ama kuwa hore u deganaaba intaba inaan la kala saarin sidaan arinta isku haatay rabaa inaan lagu kala bixin mana runtii inuu hal maalin miyaad aragteen hal video ama hal clip ama hal khudbad ama hal idaacad intuu fariistay gobolkan dagaalada ka socda raali kama yihi anaga koonfur galbeed wax ka miyaad aragteen waa maya waa dadka asaga wax ku shubto ama adeegsado ama ku adeegto dadka asaga ay ku adeegtaan
oo asaga yani muxuu ahaa hormuud buu u yahay gobolkaas inuusan degin dhibaatada uusan ka bixin dagaala sokeeye inuusan ka dhammaanin buu mar walba raali ka yahay marka maantayto haddaan mawduucan usoo laabto shariif dhaqaalihiisii ilaahay idamkiis waan xirnay waxaan caalamkan u caddaynay inuu argagixisada dhaqaalo ku bixi weyna caddahay magarad al-shabaabka diinsoor ka dagaalamo midka qansax dheere ka dagaalamo midka galguduud joogo midka yaaq baraawe joogo midka meesha la yiraahdo ceelbuur joogo midka joogo beledweyne iyo hiiraan midka joogo muqdisho kan shabeellaha hoose joogo kan kismaayo joogo kan bu-aala saldhigyada ku leh kan baar dheere joogo kan saakow joogo dhammaantood shariif sakiin baa faaga shariifka ayaa lacag bixiyo shariif sakiin baa lacagta siiyo way caddahay magaras way caddahay arrintaas ayada marka sidaas daraaddeed waxaan leeyahay waxaan idin sheegayaa dhaqaalaha ugu badan shariif wuxuu ku haystaa abudabay lacag lagu qiyaasay ilaa iyo 10 bilyan oo dollar inay taalo bangi ku yaala abudabay ayaa lasoo sheegay waa la ogaayay taas ayada shirkad kamid ah shirkadaha xawaaladaha Soomaaliya mid kamid ah uu asaga leeyahay baa jirto ma sheegayna magaceeda laakiin se mar dhow waxaad maqli doontaan war aad ku faraxdaan ayaad maqli doontaan shirkadaas ayada waa la xiri doonaa waa la xiri sheerkeeda ugu weyn asaga leh waa xawaalad Soomaali ay leedahay magac Soomaali ku shaqeyso oo la yaqaano oo muctarif ah oo abudabay ganacsi waaweyn Nairobi lacag baa u taal lacagta Nairobi ma badno lacagta Nairobi taalo lacag badan ma aha inkastoo faraca shirkadu Nairobi saldhig weyn ay ku leedahay laakiin saldhigeeda ugu weyn oo laga xukumo abudabay uu ku yaalo shirkadaas ayada waa u dhamaatay insha Allah taala waa ka guuleysanay waa shirkada dalka Soomaaliya ka degi laaya dad baa waxay u maleynayaan shirkadihii hore loogu mashquulsanay inay tahay laakiin shirkadan shirkad aad u maleysaan ma aha shirkadaha idinka aad u maleynaysaa waa xawaalad caalami ah oo la yaqaano oo yani muxuu ahaa shariifkaba uu leeyahay iyo rag yaro kooban baa isla leh laakiin sheerkeeda ugu weyn shariif sakiin baa iska arrintaas ayada ana waxaan ku soo ogaanay magaalada Jeneefa ay ku soo ogaanay magarat sidaas daraaddeed shariif sakiin warbaha dibadda waxbaan ugu qaban karnaa waxbaan ka qabanin laakiin raggeena gudaha joogay iyo raggii yani muxuu ahaa oo howlahan yani ninkan inuu dadkan ummadan uu ku xoreeyo oo gudaha u joogay ayagii baa laga rabaa inay dhaqdhaqaaq ay sameeyaan laakiin mar dambe insha Allah waxaan rajeynayaa dhaqaala dambe lagu caburiyo oo koonfur galbeed dadkeeda lagu baabi'iyo oo lagu gumaado oo shabaab lagu caawiyo dambe shariif inaysan u soo bixi doonin lacagaas ayagaas sidoo dhaqsiyaha badan baa loo xanibayaa Ilaahay dhaqaala burbur baa lagu ridi dhanka dhaqaalahan kala dagaalamayna Ilaahay dacwadihii aan ka gudbinay sidii wanaagsaneed oo loo qaabilay dawladaha caalamka aad bay ugu mahadsan yihiin dawlad Yurub kamid ah baa lacag siin jirtay tii ayada ahayd waan soo xirnay oo asaga mashaariic been ah u ballan qaaday inay maalgashi ay ku sameeyaan gobolka Shabeellaha Hoose inay maalgashi ay ku sameeyaan shirkado asaga heshiis kula galay يعني محاها ودن كان هذا أو ودن كان أو سويسرلاند درس كلا شركة بوهشيس لقلي السجية والكي سيمادين سنة كلا صودا في ماركنا محاها أهنتي أيضا هذا وقلبا قسميني ونسوق يعني وفل وحن صارني 0-0 سكتورة أيان نبقصيني ما هذا سلاحي بس كذا تاس أيضا وانكهرتني شركة دا سيدة هدي مالجشي أو الشباب أي لص ماين سيدة أطلبنا لكن إن ماشى سيدة أيسن شريفك يعني وحى وشجعي إني بينهن وحى أيسن كجرين بان كذا دعني وحي أي إسلام بالنسبة إلى مالجشي شباب الله وصل الله وذي لما نتون وانصوب بربريني إلهي سبحانه وتعالى ما هذا سكلا وانكسر حرنا شركة دايدة هاد وحمرك هذا قام كقرني قاب دبلوماسي عالمي أو international إن دنك دقالها أن قطع قرينا شريف سكين دنك دقالها هدي دقالها لقى هرتوا أو لقطته ما أكتها إنه سن واحد تنبئ وسن وذي كريم واحد قال وذي كرام يا راتب ملا
dhibkiisu waa yaraan waxqabadkiisu waa yaraan sababtoo ah nin ra'yigiisa asaga xur u ah ma ah ma garat ayaan dhawad shir baa dhacay muqdisho oo lasugu yiri dhammaan ayagoo dhan baa lasugu yiri walaal la shargareeyo waxaa loo yiri dhammaan inta yani muxuu ahaa dhiigga dadka muslimka ku ganacsan jirtay baa loo yeeray oo maamul goboleedyada sheegto oo hadduu noqon lahaa waxay heer gaareen in gudoomiyihii gobolka banaadir la yiraahdo shariif sakiin iyo ninkii la yiraahdo xaaf ninkii la yiraahdo labada nin waa labada gangis labadoodii waxay yiraahdeen iyo cabduli gaas saddexda nin waxay yiraahdeen shirka ha laga saaro gobernatooraha gobolka laga saaro bal ma ogtiin wax la qarinayo meesha iyada baad fahamsantiin waxay yiraahdeen shirka ka baxo taabid ninkii la yiraahdo laga saaro bal meesha uu ka dagaalama waa wixii lagu shubay shariif arintaas hadii ma la qabtaa baa yiri haa ana ma ku qabay hadiiba haaf arisaas leeyo halku saaray u samay waa maamul goboleed ma ogo gobernatooraha gobolka banaadir shacabku u haysto in afartoodi ama shantoodi hirshabeelle iyo macal jubbaland macal puntland macal somaliland markii la isku daro ee dhammaantood maamul goboleedyada oo dhankiisa ilaahay watay kulli markii la isku daro ma haystaan shacabiyad ma garad shacabka xamar ku nool Soomaali meesha ugu dadka badan waa xamar sababtiin ya ma garad okay markuu walaalayaal dad fara badan baa marka ala kulli xaalin waa la ogaaday shariifka hatta lawyer ma qabsan karo waa jaahil waxna qorin waxna akhrinin oo aanan yani muxuu ahaa hataa yani muxuu ahaa mar allaale markii hoteelada uu degaayo hataa yani muxuu ahaa aanan aqoonin ilbaabkoodii iyo daaqada hoteelka iyo ilbaabkiisa taa ma kala yaqaano ma garat wax uu kala ogyahay malahan lawyer oo maanta abiil uu ku qaato oo qabsan karan haba yaraatee ma jirto yani qof u doodayna malahan waxaan ilaahay mahadiisii ah inaan dhaqaalihiisii oo asaga terroristiga uu ku taageerayo ilan gobolka bay